حقتادا halkay colaadu ka balalaan bartan kaanu galnaayo nagoo ka bayrin sawiride ka bixina السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن داوديال مال والبا الدنيا ذا كجوكتان واحد كسر دواتان برنامج كالدنيا ذي دانان أو مالين والبات كداوتان دانان تي في أفري لباتان ومالين سبتها تاريخنا أكو بيغان تاهي لباتان إسديدة بشا لبي تواناد ديزمبر سنة لبدا كون يساقالي توانكا وضبدا برنامج كصاحبي الهدية إنو كبلاونو محكمة كتالا فيتنام أيا كوحو كنتي وزير كهوري ورفافينتا حبس دائن كدب مركي لغو هلي دين بياه إن أوقاتي 6 مليون أو لالوشا أو لحديدة هشيس مورن بدن دليي أو أيلادا هاي شركة إسغارسينتا لغو مقعاو موبيفون نبيين باكسون waxaa helay lacag si fudud oo ku helay taas oo heshiis shirkadda isgaarsiinta Mobifone laga siiyay lacag dhan waa saamidan 95% sida ay sheegtay wasaaradda amniga dadweynaha oo warbixin ka soo saartay maxkamaddu waxay sidoo kale ku xukuntay wasiir kale oo warfaafinta ah oo horay xil ugu soo qabtay dawladda dalkaas ayaa waxa ay ku xukuntay 14 sano oo xabsi ah kaasi oo lagu eedeeyay in uu masuqmaasuq dhaqaale iyo in uu laaluush qaatay sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda amniga ee dalka Vietnam warbixinta ayaa sheegaysa in wasiirka uu qaatay lacag dhan 3 milyan oo dollar isagoo wax isdaba marina sameeyay maxkamadda ayaa sidoo kale 12 kale oo eedeysanayaal ah ku xukuntay inta u dhaxaysa 2 ilaa 23 sano oo xarig ah kadib markii ay ku lug lahaayeen kiiska qorshe lagu iibinayo saami ku saabsan Mobifone ayaa in muddo ah la filayay in uu ka mid yahay waxyaabaha laga filayo in Vietnam ay ku dhaqaaqdo balse taas ayaana weligeed dhicin dawladda waxa ay hore u sheegtay in ay iibinayso saamiga 50% Mobifone dhamaadka 2020 waa sida la rajaynayo in dawladdu ay sameyso balse waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha Vietnam dhinaca Algeria hadii aynu eegno madaxweynaha Algeria Abdelmadjid Tebboune ayaa waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Abdelaziz Tebboune kaas oo horay u ahaa diblomaasi waxa uu sidoo kale baraa ka ahaa jaamacadda Algiers ninkan loo magacaabay sida warbixinta TV-ga lagu qorayba ayaa waxa uu soo ahaa macallin jaamacadda Algiers ka bara kulliyadda lagu magacaabo political science ama cilmiga siyaasadda waxaana haatan loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku guuleystay hoggaanka xisbiga ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu ku guuleystay codbixin loo qaaday hoggaanka xisbiga Likud xubnaha xisbiga oo gaaraya 116,000 ayaa 49 codeeyay boqolkiiba ninka la tartamayay Gordon Sar ayaa qirtay in laga guuleystay isagoo sheegay inuu taageeri doono Mr. Netanyahu marka la gaaro doorashada guud codbixinta ayaa loo arkayay mid lagu tijaabinayo Netanyahu xilli uu wajahayo caqabado badan Netanyahu oo 70 jir ah ayaa wajahaya eedeymo la xiriira laaluush iyo masuqmaasuq sidoo kale ay doorashadii saddexaad dalkaasi ka dhacayso muddo sanad gudihiisa doorashooyinkii hore ee dhacay April iyo September ayaa xisbiga Likud waxa uu awoodi waayay in uu soo dhiso dawlad Mr. Sar oo ah nin caan ah oo xisbiga ka tirsan ayaa doonayay in xisbiga u furo wada cusub Mr. Netanyahu ayaa si toos ah bartiisa Facebook ugu codsanayay xubnaha xisbiga in ay codbixinta ka qayb qaataan waxa la saadaalinayay inuu ku guuleysan doono hoggaanka balse waxa uu sameeyay ololo balaaran isagoo doonaya in uu sii hayo hoggaanka xisbiga Mr. Netanyahu oo hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee dalkaasi xukumayay ayaa bishii hore lagu soo ogay 3 dacwadood oo musuqmaasuq ah balse waa uu beeniyay jiritaanka eedeymahaas isagoo sheegay inay yihiin kuwa siyaasad ahaan la soo abaabulay waa tahay dhinaca iyo Rushka hadii aynu eegno dagaalka afka ee hogaamiyaha Rushka ku qaaday Poland ayaa ku qotoma taariikh hore oo tagay todobadii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu dalkaas carabaabay ugu yaraan 5 jeer mar uu ka hadlayay shir muhiim ah kuwaas oo aan xitaa looga hadlaynin taariikhda ama siyaasadda dibadda mar uu carab kala dul dhacay wasaaradda gaashaandhigga dalkaas shir ay yeesheen 24
4 December wuxuu safiirka Poland ee Jarmalka ku tilmaamay inuu yahay wasaq iyo doonfaar ka soo jeeda Yahuuda 2 saacadood kadib mar kale ayuu isla arintaas uga hadlay shir oo la yeeshay xubno baarlamaanka ka tirsan afayeenka aqalka hoose ee Rushka Duma ayaa u mahad celiyay Putin waxa uu raalgelin ka codsaday Poland maalintii xigtay madaxweyne Putin ayaa shirkiisii dhamaadka sanadka ee la yeeshay ganacsatada Rushka sida laga soo xigtay wargeyska Valpress ee Rushka waxa uu shirkaasi ugu yaabsaday dad badan kadib markii uu si qoto dheer uga hadlay bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka iyo doorkii Poland waxa uu sidoo kale qorsheynayaa inuu maqaal ka qoro arintaas balse maxay tahay ujeedada ka dambeysa ambaareenta Vladimir Putin ee Poland ayaa daba socota qaraarka baarlamaanka Yurub taas oo lagu cambaareynayo midowga Soviet iyo Naasiga Jarmalka markii uu qarxay dagaalkii labaad ee adduunka midowga Soviet ayaa waxa dhowr jeer lagu cambaareeyay in Poland ay lamaanisay Nazi Jarmal sabab la xiriira heshiiskii ku aadanaa taageerida Hitler guusha midowga Soviet ee dagaalkii labaad ee adduunka waa mid in ka badan 30 sano welina taagan ilaa haatana waa loo dabaaldegaa sidoo kale waa mid muhiim ah in madaxweynuhu uu adeegsado siyaasadiisa arrimaha dibadda inuu ka guuleystay taliskii Sovietka sidaas daraaddeedna aqalka Kremlinka ayaa mar walba u arka cambaareenta la xiriirta guusha mid Ruushka weerar ku ah waa tahay ugu dambeyntii hadii aynu jaleecno dhinaca iyo Kuuriyada Waqooyi ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig ku yaala Kuuriyada Koonfureed ayaa maqlay seeriga degdega ah ee dagaalka taas oo sababtay cabsi ah in Kuuriyada Waqooyi ay weerar soo qaaday wuxuu qorshaha in askarta la maqashiyo dhawaq kale balse seeriga ayaa si lama filaan ah u dhawaaqay afayeen u hadlay militariga ayaa arintan ku tilmaamay qalad aadane ka dhacay saldhiga Kamkase kaas oo si aad ugu dhow xuduuda labada Kuuriyada Waqooyi ayaa horey ugu hanjabtay in hadiyada ciidda Masiixiyada ay u diri doonto ciidamada Mareykanka si ay ugu qasabto in ay ka tanaasulaan arinta hakad ka gelisay wada hadalada labada dhinac Kuuriyada Waqooyi waxa ay sameysay tijaabooyin dhanka dayax gacmeedyada si ay sare ugu qaado awoodeeda nuclearka sida warbaahinta dalkaas ay qortay bishii la soo dhaafay Japan waxa ay dhaleeceysay Pyongyang oo si joogto ah u tijaabinaysay madaafiicda caaga xilligaas 2 xabo ayay hawada u dirtay si kastaba dawladda Kim Jong Un waxay sheegtay inay tijaabinayso madaafiic waaweyn oo dhowr madax oo sun ah qaadi kara waxa ayna ku hanjabtay in Japan ay suuragal tahay in ay aragto madfac dhab ah mustaqbalka dhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in wali uu rajaynayo inuu heshiis la gaaro Kuuriyada Waqooyi madaxweynaha waxa uu sameeyay hab diblomaasiyad oo Kuuriyada Waqooyi xudun ugu dhigaysa siyaasadda arrimaha dibadda ee sanadii 2018 balse in la tanaasulo ayaa fashilantay gabi ahaan barnaamijka dunida iyo danan saaxiibayaal halkaas ayaan ku soo afmeeraya anigoo Ayuub Aadan Xasan ayaa barnaamijka idin soo saaray fadlan subscribe saaro si aad ula socotid xogaha aynu soo gelino barteena YouTube-ka wixii talay tusaale waxaad inoogu reebi kartaa qaybta hoose saaxiibayaal sidaas iyo nabadgelyo baahida xogtaada halkay colaadu ka balalaan bartanka